Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelka Maxamuud Cabdilaahi Xasan. Maanta iyo video cusub oo ka hadli doono dalka Zimbabwe. Channelka subscribe si videoda like gare kumadna xagga hoose ku qor. Dalka Zimbabwe ama Republic of Zimbabwe waa dal aan xeeb lahayn oo ku yaala koonfurta qaaradda Afrika. Koonfur waxaa ka xideeya dalka Koonfur Afrika, koonfur galbeedna waxaa ka xideeya dalka Botswana, waqooyina waxaa ka xideeya dalka Zambia, barina waxaa ka xideeya dalka Mozambique. Cabirka dhulka dalka Zimbabwe waa 390,000 oo kiiloomitir oo square ah. Tirada dadweynaha ku nool dalka Zimbabwe sanadkii 2019 wuxuu ahaa 14,240,000 oo qof. Magaalo madaxda ama caasimadda dalka Zimbabwe waxaa loo yaqaanaa Harare. Diinta dadweynaha ku nool dalka Zimbabwe xagga boqolkii 84 ay yihiin Kiristaan, xagga boqolkii ay yihiin Bilaadiin, xagga Muslimku uu yahay boqolkii 6. Luqadda rasmiga ah ama afka rasmiga ee dalka Zimbabwe waa afka Ingiriisiga. Lacagta laga isticmaalo dalka Zimbabwe waxaa loo yaqaanaa Zimbabwe dollar. Hase yeeshee, sicir bararka ka jira dalka lama isticmaalo lacagta dalka, waxaa la isticmaalaa doolarka Mareykanka ama Euroda. Madaxweynaha dalka Zimbabwe magaciisu waa Emmerson Mnangagwa. Dalka Zimbabwe xorriyadiisii wuxuu kala soo noqday gumaystihii Ingiriiska 1965. Hase yeeshee, waxaa la ictiraafay dalka Zimbabwe sanadkii 1980. Dhaqaalaha dalka Zimbabwe wuxuu ku tiirsan yahay beeralayda iyo xoolo dhaqatada. Xagga beeralayda, dadweynuhu ay ka shaqeeyaan boqolkii 69. Waxyaalaha ugu caanka ee dalka Zimbabwe uu beerto waxaa ka mid ah bariiska, heedda iyo cudbida iyo sonkorta. Xagga dalka Zimbabwe uu caan ku yahay soo saaridda macdanta loo yaqaan koobarka iyo nickelka iyo dahabka. Dalka Zimbabwe waa dalka ugu sarreeya qaaradda Afrika ee dadkiisu yihiin aqoon-yahan. Xagga waxbarashada, dalka Zimbabwe ay tahay bilaash. Caafimaadka dalka Zimbabwe aad iyo aad ayuu u liitaa. Xagga cudurro fara badan ay ku dillaaceen dalka Zimbabwe oo ka mid yihiin cudurka daacuunka ku dillaacay dalka 1994 iyo cudurka loo yaqaan AIDS-ka. Dalka Zimbabwe wuxuu ku caan yahay biyo dhaca loo yaqaan Victoria, xagga ay ka mid tahay biyo dhaca ugu waaweyn adduunka. Dalka Zimbabwe wuxuu ku caan yahay madaxweynihiisa Robert Mugabe oo la dagaalami jiray midabta koorka dalka Zimbabwe ka jira. Xagga madaxweynaha Robert Mugabe ee xukuumay dalka Zimbabwe 30 sannadood inta u kala dhaxaysay 1987 ilaa sanadkii 2017. Xagga ugu wacnaa madaxweyne Robert Mugabe inuu dalka geliyo dhaqaalihii ugu xumaa ee abadkii soo mara dalka Zimbabwe. Madaxweynaha Robert Mugabe wuxuu ku dhintay dalka Zimbabwe sanadkii 2019. Channelka Maxamuud Cabdilaahi Xasan wuxuu ku rajeynayaa daawasho wacan iyo mid qiimo leh. Channelka subscribe si videoda like gare kumadna xagga hoose ku qor.